cadawga ummadda Soomaaliyeed haddii ranki la kala siiyo macnaha oo liiskooda la tixo kaalinta koobaad hadaysan gelin labaad iyo saddexaad way cirirsanayaan dadka dhaqaatiirta isku sheego ee isbitaalada jooga oon ka xaasidsan ilaahay ma abuuro tan maanta taagan ee la arkay ee ilaahay fashiliye kaamiradu soo qabatay kuwa badan oo aysan soo qabanin ayaa maalin kasta ka dhaco isbitaalada ku yaalo dalkeena marka laga soo tago inay yihiin dhiig miirato isbaaro u dhigta qof kasto bukaan ah oo wax naxariisa aanan lahayn shub hadii kale halka ku dhimo ay tahay waxa u sii dheer haba dhiig miirtaane hadana adeegii sidii loogu talagalay u qabamayaan nin walba wuxuu fiirsanayaa kaliya account waxa ku dhaca anigaan waxaan ogahay in badan oo tiinana aad ogtihiin dad badan oo ayagoo bukaan ah gargaar degdeg ah u baahan isbitaalada la keeno hadana gargaarkii degdeg ahay amarka kii bixin lahaa dhaqtar hebel maqan maamulihiya meel kora saaranay suga war qof gargaar degdeg ah u baahan oo laga yaabo neeftu ay dhibayso oo hadaan saalada la saarin hal daqiiqo gudaheed naftu uga baxayso sidee amar qof kale loo sugayaa midba wuxuu leeyahay anigu shaqada hadda waa ka baxay emergency taagan qof xaalad degdeg ah ku jira taagan shaqada hadda waa ka dhaqtarkii lahaa awli soo shaqo gelin ana hadda taydu waa dhamaatay intaas qof u dhimana wax ka xaasidsan marka ma jirto waa isbitaalkii dawladda waxa hadda maama Soomaaliyeed tay soo buriyeen hortooda ay ku dhashay oo ummaddu wada aragtay waa isbitaal ay dawladdu gacanta ku hayso kuwa barafadka loo leeyahay ka daran tacdiyada ka dhaca halkaas waxay u baahan tahay isla xisaabtan adag waxay u baahan tahay dib u habeen badan waxay u baahan tahay sirdoon in la dhaxgeeyo isbitaalada barafadka loo leeyahay oo isbitaalkii xadgudub dadka ku sameeyo dalka kuwa oo joogana maxkamad la soo saaro asagana la xiro saano nolol ma ah dawladdu waa inay dadka isbitaalada lagu gumaadayo ay shaqo ka qabataa